si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee Radio Kulmiye fadlan subscribe saar channelkan. koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi dadku inuu dareenkii cabiro wixii uu doonayo dabaddana u soo wada baxo sheegta danihiisa dastuurkaa sidaa lagu qoro loo deliishaday waxa lagu dareensaday aniga weyga degi weydi waraanin reer kalamaano maysiin lahaa dablankii gobsida isku day meeraw duduumi inoo la dugsida masla daraansada mal isla helaw arood aniguna waxaa maqli jiray nintiisiiba daayacay kan kale dugsanaya ani igala duqunsane ariyagooyoobow ma adigaaba war haaya musharaxiinta waa kuwii ku baaqay bannaanbax lamaad jimcaha inay dhigaayaan kadibna dawladdi nabadya nolol aheeda heestay waxayna tiri dadnimada aqoonso sidii shacab dulqaado bannaanbaxaan la doonayn daljirkii ha keenina yaa arooda heestaas wasiir dubbe maa qaadayne anigu waxaan u malaynayaa caliyare cali inuu qaaday war mucaaradku marka heesta dawladda maqleen u jawaabay waxay dhaheen dadnimada aqoonso sidii madax dulqaado dadku waxaanu doonayn ha ka saarin duudkee warniba heesaas ma cabdiraxmaan cabdishakuuraa qaaday arooda mustafdhuxulo inasiixaan u malaynaa war waxaa la yidhi dusha hugaad ka xidhatiyo dunyadaada khaasiyo dukaan maaha derajadu dusha hadalka kaga tuur ayagaa dareemiye yadheegi jari warmadii waxaad ka tagtay hadday hadal daliilshaan ama kula dagaalaan dibnahaada ou furin u dulqaado weliga waranna waxaan intaa ku darayaa madaxdii la doortay daraja idin saarane dalka yaan dib loo celin daruufahana haystiyo dadkana hoos ha loo dayo arootii hore wakhtigaad waa dhammaada hadda maa mid kale la doortayne maqal yaa ku yidhi dawladdiya wakhtigood dhammaada qaradimisyow aryaadhaha samigay cabdullah arrintaan la yaabay kana warramay wuxuu yidhi how intaa la diiday doorasha dibadbaxyaashii la diila inta la diiday doorasha dibadbaxyaashii la diila war xaaladdu markay qadhaadhaato ee laysmari waayo ee qir iyo qir ay gaadho dad waxgaradaa ku soo bixi jiray aaway aqoon-yahankii aaway oday dhaqameedkii aaway culumaaudiinkii aaway dadkii dadkan wax kala dhihi lahaa ma dhammaadeen war xanaano allaha u naxariistay abwaan maxamed gacal xaayow hadda ka hor waxa uu yidhi dhiishi aan higaagiyo sidada lagu dhaqaalaynin dhigaal hays ma noqotee markay dhumiso aagaanka waa la dhegatoleeyaa waxaa lagu dhayaa geela dhegaystow su'aal kama dhammiyo dhaqan isweyddiine ma dhinteen waxgaradkii dhulka ayaa wax nagu dhaamo war waddankan waxgaradkiisii iyo cid kastoo wax aqoon ahayd 30 sannadood baa ugaadhsi lagu hayey waxayna noqdeen wax dhintay iyo wax naftooda la cararay aryaadhaha haddaba waxaad leedihiin wax garta oo wax dhihi kara dhulkan ma joogaan abdulo ataa haddii jiraan walgorod awood baan jirin haggoodo afkooda juuqdii gabay war hadda suldaan geeddi gaabow cidaan ahayni soomaaliya uma maqna miyaa aryaadhaha kalamaanay axmed dheere siinley ku sheeg lama saluugaane siyaasadaha jira iyo murtidu ma aha saaxiibe dadkii suubanaa jiray miyay sabatay beenleydu arooda wax lisweyddiin muxumee ayaanta axmed dheere yaa arkayne war axmed dheere waxay igu war dambaysay isagoo leh ninkii laba dal yeeshaa midkood waa dayacayae war axmed dheere nin mayba idinku war dambooytay usugoo leye yaabyaabane yaad la sugi yaabku ku hor yaalla oo hadda ma yaabbu ku maqan yahaadnana leedaha war daljirka isagoo joogaha u war dambaysay miyaad dhahdeen war ma haysiine dawladdii war culusaa ka soo baxay baarlamaankii maa la kala diray doorasho ma ogolin miyay tidhi war ma madaxweynihii baa tanaasulay diidan iyoonay doonteen darkaafyay uni fidhiine ereena arooda horaa loo socnaa may tirine horuu wadaay howl wadeenkow horuu wadaay horuu socodkow horuu wadaay hanti wadaagow horuu wadaay may dhaheen hanti wadaagsow kii lagu hoogay maaha
war kacaan iyo hanti wadaag kalama haraanba warnamiyoon hanti wadaagun gorod waayay ha keedin anaa iskale kaadana kulalihi waa warwarka anaga dhex gelinine wasiirka amniga xasan xudume jimcaale wuxuu yidhi wax bannaanbaxa oo la qaban kara ma jiraan mid dawladda lagu taageeray mid looga soo horjeeda intaba marka cid bannaanbixi karta bataatama ma jirtou yidhi ciddii aan aamusi karana war ka buuxo inay hadasho u diyaare layf ha soo gasha layf war aaway dimuqraadiyaddii dawladdu sheeganaysay war dawladdu miyaanay ogayn dadku inay bannaanbaxaan inay xaq u leeyihiin oo ay dastuurka ku qoran tahay yaa arro af male abaaburun wa ukromal guwaanguwun wa may maraysaa argooyo waruu gawaanguwan ma aqaane abwaanataraawi hadda ka hor waxa uu yidhi maalintii xurnimada iyo gobonnimada ma aha maalintii kacaanka ee lee doortay ma aha dadkan soo bannaanbaxay feestay ayaa yidhi waa maxay durbaanada iyo demdemaha dhaga tiray aryaadhaha abwaan cali dhuxul maxamed allah u naxariisteeba hadda ka hor wuxuu yidhi sagaashamaad gaaray oon sayndhul ugu aallin oon sagalyo fiidguur lahayn soo masida waaye 30 sano ninkii gaaray oo salaxdu diir beeshay oon sawja naageed lahayn soo masida waaye 3 sanana wiil siin quraan looga samac waaye oon aabbihii soof u jirin saaqna ka afruujin oon subax khamiisaad gelayn soo masida waaye cabdullow shala waxaan kaa maqlaayay ma 50 sano kadib aan kacaankii koobiyey rabnaa halkii ay joogtaahoo lama bannaan bixi karo afkiin qobsada mase afgooyin guuro mara hayte war xataa afgooyaan la aadi karin afkaaga hayso araadi waxaan maqli jiri intaan ka baxaa war kalamaanay miyaa carruurowdeen war dad waaweyn aamusan la yidhi maxay carruur dhaamaan xambala gaagaab hooyoy ku dhashay waxa sheegin araada war ma haysiinaa wasiirka warfaafinta master dubba waxaas yidhi jimcihii la soo dhaafi dawladda afgambiyaan ka badbaadinay rajib tayyib ordigaan aska bareejayniyaleya araa warkayga dhex galina afgambiyaan fashilinaas yidhi qarannimadiina waa badbaadinaas yidhi dalkana dawladda waa difaacaysaa haas yidhi cid damba afgambi isku day kartana ma jirtaas yidhi dawladnimada soomaaliya ciddii soo hawaystana tallaabaa laga qaada haas yidhi madaxweynaha kursigiisana ciddii soo damacday yaa weyn lagaas yidhi yaa caro master dub baa igu oga rag waa yahay war afgambigii la fashiliyey bannaanbax lagu taageeraya dawladdu ma ogashahay aryaadhaha war ma haysiina beriga bannaanbaxaa dawladdu beledweyne ka abaabushay laakiin bannaanbixin dawladda lagu taageeraya wax dhanna muga u socday waxa uu isu beddelay mucaarad aan cariya suusac lahayn hadda madaxweyne farmaajo ha noolaada say u socotay ha dhaco ka xoog badisay ka kadibna ciidankii dawladda risaas ku kala firdhiyey hadda dhabaday geedgal ka dhacday allahu akbar dawladdu bannaanbaxa mala soo abaabulaya mana kala raacdaye araada bannaanbaxa soo u qumnaayo oo ka qalloocday warnimiya walisiin lahaa meel say u taalaa looliyaalsin ma arne banaanbaxda markii hore taageerin yaali marka dambena mu'aaradan isbedelay mudujayni wal marsiyeeli leeyahay aryaadhaha warkayga dhex geline bannaanbaxa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageedaa soo abaabulay kadibna marka u qalloocday asaguna qalloociyow yidhi war janaal xuud baa ka rogoo laba saar yidhi war waxaan maqli jiray adaa buuqa sameeya haddana diida bulaanka daboosow waxaad ka tagtay baxnaanaadaydii barrow ka sorrayntaydii waa barkumata'le war dimuqraadiyadda maanta bannaanbaxa beledweyne ka dhacday daljirka dahsoon baa la yaabay beledweyn allaahayo balayada hareer mari warwar ma haysiine golaha ammaanka qaramada midoobey waa kii arrinta soomaaliya ka fadhiistay bal haa ka galehe aryaa beesha lixaad miyay ka mid yihiin war qaramadii midoobey mashaqala'aan baa ku dhacday kutaabtaaska dhex weeragday maalimiintii buwa ya inoo shal eraan maaha aryaadhaha qaramada madoobeed cambaareen ma ogiya tabar kale horta ma hayaan aroo cabdulow cambaareen ciyaar ma aha war cambaarayni geel ma dhiciso war cambaaraynta naftirkeeraad cambaaray haynaa warwarkaa naga dhex gelinina wax liidiima sheegi karee arrintuu cambaarayn waa soo dhaaftay waxaana shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobey laga yidhi soomaalida nasiib darraa haysata madaxdeeduna inay isfahmaan diyaaru ma aha wakhtiga la joogay dhaqankooduna isma leh duruufta dalkooda iyo waxa ay ka fakerayaanna iswaafaqi maayaan xaaladooduna farfarku taagay maraysaa jeemis iswaalna wuxuu yidhi su'aal waxay ka taagan tahay sida ay ku sii shaqayn karto dawladda wakhtigeedu dhammaaday iyadoo 8 Februari madaxweyne farmaajo 4 sano ku ekayd awda dawladdeena gacanta fududeen nan garaaduma loo qoray war ergeyga midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya wuxuu yidhi rabshadii jabcihii dhacay way dhammaadeen laakiin sababtii dhalisay
way taagan tahay war anigu waxaan dhihi lahaa xelaxela adow kala qoqoba dul xigaala ahe haddii aan xishood laga tegin in la isxushmaynayo aadanaha maqaamkiiyo xilkaa kala xadeeyaane madaxweyne adigoo xukumay xaakim goboleede adigaa xasradan beere iyo xaalkan maanta ahe siyaasadan xirxiranay adugu waa xaraar tahay war abwaan maxamed sahal waxaan ka maqli jiray hogaamiyaasha xayraamayow dhima xawaaraynta xakameeya damiciinnu waa xawli dheer yahay xirfad kale la soo baxa dagaal waa xadhaar yahay aryadhaha haddii dad wax gartaa jiraan war waaraa dhammeeyey fuusidii biyodeediyaase orma buuhi koran lahaya ubay war moog araawaara mar hor ah hirshabeelle laga qaaday aryadhaha waana waasheena waare wuxuu yidhi muggaan dhegansadha warkii golaha ammaanka qaramada madoobay muggi leesugeeyo micnihiisoo dhan wuxuu ahaay waxaan nin raga la dhihin wuxuuna la mid ahay aabbe la yidhi ilmahaaga iyo xaaskaaga waa dayacan yihiin ee sidaan si aan ahayn u dhaam masaasidii aanaka jarto lakiinka dhiib dhahdoon ku waraabto eray war nin la yidhi carruurtaadii iyo xaaskaagii baa dayacday ee si u dhaan maxaa u hadhay maxaa ku dhimanoo lagu dhahaa war waa dhammaadee aan maqli jiray war wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirisaaq oo ka qaybgelaya shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay puntland iyo jubbaland ayaa wuxuu ku eedeeyey inay doorashada hor taagan yihiin war horaa waxaa looga bartay nabad iyo nolol ninkii ay warkiisa dhibsadaan ninku qabiila inay ku khataaraan war golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu khudbad u jeedinayay wasiirku war wasiirka arrimaha dibadda maxamed cabdirisaaq wuxuu sheegay inuu soomaaliya karoone ka qaaday kadibna uu burundi geeyey haddana burundi ku karantiina yahay markaa muxuu dad u eedaynayaa isagaaba tiisa la liitee aryaa karoonaha lama kala xige wasiirka allaha caafiyo ar cabdullah waa sidaa sheegtaye karoone maan kala xigna koonkowba kulligiis mare warwar maysiine xarunta abwaan faarax shuuriye waxay qabatay barnaamij loogu magac daray mudnaanta marwada waxaana looga hadlayey taariikhdii marwe faadume axmed caalin curayji oo ahayd gabadhii soomaaliyeed ugu horraysay jaamacadka qalin jabisa oo ahayd gabadhii ugu horraysay soomaaliyeed wasiir noqota waxaana ka qayb galay maryan xaaji cilmi raaqiye xaaji ducaale xaliimo yarey brofesor jimcaale brofesor cabdulqaadir ruumi brofesor maxamuud maxamed culusow waxaana soo qabanqaabiyey abwaan bashiir maxamed xirsi war curayji ee dadka kale ka qayb galay ma isku fasal bay ahaayeen war xarunta abwaan faarax shuuri dad intaa lagu xusi jiray dad nool miyay keeneen inay xusaan aryaxaad ula yaabaysa dadka wax qabad leh dadka waa la baraahay warwar ma haysaana saldhigga fariirdooda xamarweyne hortiisa qarax baa ka dhacay maanta kuu dhici jiray ka duwan war yaa ka dambeeyey alaamo gooni ee walahaayey war ma la daba jooga warwarka iga dhex gelinine nin baa soo gashaday baa la yidhi jaakad qarax ku jiro ma ku jaakeeyey kadibna markuu saldhigga hor maraayo ayuu inta iska bixiyey saldhigga ku hor tuuraa la yidhi kadibna horuu ordoo suuquu dhex galaa la yidhi ma adduunya u macatay warkaas cashiradii horarka waa khasaariyey war ma cabsaday mise waa xishooday warwarka ha iga dhex gelinine taliyihii saldhiggu waa ku dhaawacmay dad goobjoogayaal ahaana waxay yidhaahdeen ninkii wuu baxsaday ciidankuna waa qabannay dhaheen armaskiin meesha maraay miyay qabteen war wuxuu doonaba ha ahaadeen run ku sug warwar mahaysina shirkadda samtel waxay soo saartay kaabe iyo kaydso markiyaa wax loo kaydinayaa yaase la kaabaya oo diyaar u ah aryaa muuse jiisoobo ma haddana kalamaanaad kaaba iyo kaydsa noogu keenta beriga sidaad u durdurihaysa ar abdulow kaadsan la'agtaada kan ligley la'agda kiinkeediye war madayow kaababa lacag daynuu ku siinayaa baa la yidhi dulsaarna lama socdo warwar ma haysiine den iyo axmed madoobe waxay dhaheen shirka waa in lagu qabto meel amnigeeda lagu kalsoonaan karo markaa debadda ha lagu qabtay dhaheen war ayaantan dhallinyaradii facebooka oo dhan ayaa deni lagu kiciyo oo la yidhi u jawaaba wararta qolada facebooka marba nin loo diro jawaabtu kama dhammaata miya maxaad ka rabtaa dhaqaalay ka helayaane war mahadwaasac wuxuu yidhi dawladda digniin bay dirtay shacabku digniinay direen mucaaradka digniin bay direen saraakiisha ammaanka digniin bay direen odayaasha dhaqanka digniin bay direen waa yaabe intaasoo digniin ama xoolaha loo diray horta kalamaan waxba kama digta miya aryaadhaha waxaan dan guud ahayn wax nooma galaan nacnacda kale meel halala fadhiiso waryaa waa runtiisa maa ku raacdin nabadaalnaas luga leh waryaa dad waaweyn baa tihi maalin kasta meeshaanaad muran iyo khaylo la soo taagantihiin ka warrama goormaa la heshiina horta maxaa lagu heshiinaya waa kaas iga wareeji war dalka iyo dadka u daneeya loo shaqay waryaa walaa gabaha qanini karada lama saar